markuu dalbaday walaalkii in alla nebi uga dhigo waxay yidhahdaan waa ninkii walaal ugu anfac badnaa baa la yidhahaa nebi muuse waayo walaalkii ilaahay wuxuu uga baryay in isna nebi laga dhigo nebiyullaahi muusa walaalkii markuu rabay in nebi looga dhigo ee ilaahay ka aqbalay maxaa uu ku cileeyey wajcal lii wasiiran min ahli haaruuna akhi ushdud bihi azri waashirku fii amri sababtu u dalbanayaa waa maxay kay nusabixaka kaiira buu yidhi kay nusabixaka kaiira wanadkuraka kaiira ilaahayo walaalkayna rasuul ka dhigo igu dar oo igu xooji kay nusabixak si aanu kugu tasbiixsanno oo uu iila xoojiyo dikriga ilaahay subxaana wa tacaala rabbow igu dir buu leeyahy nebi yuunusna waynu soo maray tasbiixdiisii iyo in ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waxa lagu badbaadiyey qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebiyullaahi muusa oo markuu yidhi rabbi aan ku arko ee rabbi yidhi yaa arkari may sida buurtaa eeg ee rabbi buurta tajalli u sameeyey ee buurtii dekan dekan noqotay markuu miyirka ku soo noqday tasbiix buu ka bilaabay falamaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk tasbiix buu ka bilaabay baa la yidhahdaa nebiyullaahi zakariya ilaahay wuxuu weydiistay in ilmo la siiyo isagoo gaboobay ilmihii baa rabbi yidhi waa ku siiyey aayad ii yeel baa la yidhi aayadda waxaa la yidhi 3 maalmood dadka ha la hadlin ramzi mooyaane ishaaraat inaad kula hadasho mooyaane hadal caadi ha kula hadlin laakiin arrin iyada ha ka tegin baa la yidhi wadkur rabbaka kaiiran wasabbix bilcashiyi walibkaar baa la faray ilaahay ilmaha waa ku siinayaa laakiin dikriga ilaahay badso dikrigii markii la sheegay tasbiixdu waa ka mid haddana gaar baa loo sii sheegay bay leeyihin oo waxaa la yidhi wasabbix bilcashiyi walibkaar nebiyullaahi ciisa ilaahay wuxuu tilmaamayaa aakhiro marka la soo taago ee la yidhaahdo maa anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah maadaa dadka ku yidhi anigii hooyaday ilaahya naga dhigta waxau ka bilaabi doonaa baa ilaahay leeyay qaala subxaanak maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq subxaanak buu ka bilaabaya nebiyullaahi muxamedna ilaahay wuxuu faray qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin dadka waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi jidkayaan idinku yeedhaya waa kan ilaahay baan idinku yeedhaya anigoo calaa basiira ku sugan ana waman itabacanii aniga iyo intay raacdayba wasubxaana allahi dheh baa la leeyahy wamaa ana min almushrikiin ilaahay baan xumo ka hufayaa inta rabbi ceebaysana kama mid yihi mushriku waa ceeb leh ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo magacyadiisuu diiday cibaadadu alla la siinayuu diiday rabbi buu ceebeeyey weeyaan ilaahay markaa wuxuu leeyahy waxaa tidhaha wasubxaana allah wamaa ana min almushrikiin bale qur-aanku ambiyada daaye dadka kale saalixiinta ah ee ilaahay jannaadka korkoreeya u ballan qaaday astaamahooda waxaa lagu suntay tasbiixdu inay ka mid tahy innamaa yu'minu biaayaatina aladiina idaa dukiruu biha kharuu sujada وصبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلهي وحط المامية قوة آيات كيغا الرمية إنما يؤمن بآياتنا آيات كيغا قوة الرمية وقوة نقرب على المامية وقوة إلهي مركا الله حصه إلى حصوصيه هوبتا إيغو سجود سن وصبحوا بحمد ربهم بإلهي إلهي وتصبيح صدا إيغو كده هيا حمد قال له وان اسوينين كجرين بار رب لي مصالحين تقول ما يا إلهي ملائكته ينوغو تلمام إنا لنحن المصبحون بيت المامية يصبحون الليل والنهار لا يفترون وترى الملائكة حافين من حول العرش يصبحون بحمد ربهم ملائكة إلهي وحط المامين التسبيح لازمان أهل الجنة ذاتك خير كبضان له يقول استيله وحط الماما يعني كل واقيا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين حمدية تصبيح بقى إلهي كقور رمية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك يا رب كل شيء يا سبحانه وتعالى أيها الأحبة
tasbiixdu diinta markaa maqaam sare kaga jirta. dadkan dambe waxyaaba bidaca ama bidac la mooday baa la isku dayay in lala dagaalamo, laakiin waxaad moodaa in la raaciyay wixii diintu faraysay dadka. waa suufi iyo waa kan baa la yidhi, dabeetana dadka cidda ugu fiicani fariidka ahi waa ninka uun salaada yara haleela markuu ka baxo tira aan la garanayno faraacaynkaa la yidhahdo subxaan allah inta la yidhaahdo dhameeyo iska taga. laakiin nolosheenna waxay u badan tahay in tasbiixaadku ku yaraadeen, iyadoo aynu dadkii laga yaabo inaynu ka mashkilad badannay oo ay ahayd innaga subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiimtu inaynugu tiro badato. nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim warinaya abidar uu ka soo wariyey waxa uu la yidhi, nabigu wuxuu ku yihi alaa ukhbiruka biaxabi alkalaami ila allah, waxyaaba alla u jecelya ma kuu sheegaa buu nabigu ku yidhi. haya noo sheeg baa la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo. ina axaba alkalaami ila allahi subxaana allahi wabixamdihi buu nabigu ku yidhi. kuwa iyagu alla ugu jecel yahay waxaa ka mid a subxaana allahi wabixamdih. xadiis labaad abidar warinaya wuxuu leeyahy, nabigaa la weydiiyey ayu lkalaami afdalu, warka maxaa u fadli badan? nabigu wuxuu ku yihi ma stafa allahu limalaa'ikatih, wixii alle malaa'igtiisa u doortay aw licibaadih, oo waa maxay subxaana allahi wabixamdih. idan ayuha alaxiba, tasbiixdu ama wardigu wuxuu ka mid yahay alcibaadaat almutlaqa, cibaadaadka ay culamadu yidhaahdaan, cibaadooyinka aan waktiga lahayn, shuruud lahayn. waxaa laga yaabaa salaad, soon, xaj shuruuday leeyihin, waqtay leeyihin.